ولي دكس قرآن وقرحسان وادك كورياش aad bay u qurux badan yihiin marka way idinka mahad celinayna su'aasheeda koowaad marka waxay tahay madaariska ku saabsan weli dugsi quraanood qurxiseen oo sida iskuulada aad u qurxiseen ma jira su'aasheeda labaad mudane maayir waxay noqonaysaa dugsiyada quraanka maadaama ku iskuulada qurxiseen dugsiyadii quraankana halkan waxaan ku hayaa liisama cashuuro liisama ganacsi in aad u jarteen oo aad u aqoonsateen goobo ganacsi inay yihiin marka miyayna barmadow idinku noqonaynin inaad goobihii iskuuladana maadiga lagu banaynay inay qurxisaan meelihii dugsiyada qur-aanka waajibka inagu wadahayd inaynu hormarino ilaalino dhisno daryeelana aynu goobo ganacsi aynu u aqoonsano su-aashayda saddexaad waxa weeyaan magaalada abaarsa la yidhaahdo bardhaweyd hadalba ka yara taagna qaylo waxa dumar cabanayo maalin dhexdii ahayd hawsha igala hadlayay milkiyadaha ku saxeexan tihiin ayaabay i tuseen haddana waxay sheegayeen in tom balan baa laga saarayaa meesha markaa ma markii hore ayaa milkiyadaha ku bixiseen idinkoon tom balan ka saarin ma qorshihii baa isbedelay taasina warbixin baad insha allahu naga siin mudane maayir su-aasheeda ugu dambeysa waxay tahay waddada 150 oo de kolley siyaasad qaran oo guudna u baahan qaylo badan baa ka taagan waddada maxay idinka qorshaa aad baad mahadsantihi madaariska lagu dhigto quraanku markii anugu aan dowladda hoosanay ugumaanaan iman qorshe cad oo mas-uuliyadda madaariska quraanka ama in wax loo qabanayo qorshaha markaa waxaan ku shaqaynaynay qorshihii maamulkii naga horreeyey oo dejiyo miisaaniyad aan saxsan baan dhexdeednay markaa xilligaas waxa ku dhaatay inu qaban karna waxay ahayd madaariska soo cawda ee u baahda ama dayactir ama baahi kale noo sheegta inaan wixii aanu tari karayna aanu tarno rikoorkoodina u yaala sanadkii labaad oo aanu muddaxileedkayga ahayd ismarkaanu bilownay inaanu ka fikirno sidaad ka warqabtaan dugsiyada primary-ga ah waxbarashada asaasiga lagu dhigto wasaaradda toos gacanta ugu haysa laakiin madaariska qur-aanku weli way filiqsan yihin mas-uuliyadooduna mas-uuliyadkiina lagu wareejinayay maamuldaadjintay soo hosgelayaane wasaaradda waxbarashadu markii anaga nagu wareejinaysa waxbarashada asaasiga ah madaariska qur-aanka naguma wareejin annagu marka xoogga waxaan saarnay wixiina lagu wareejiyaan wax ka qabano bajda waa loo keli garanay baahidii markaanu aragnay in madaariskii cabashadoodina badan tahay in wax lala qabtana ay doonayaan madaariska waliba kuwa aan waxaan ka hadlayaa kuwa xaafadaha ku dhex yaala macallimiintii dee ay naqaanay sida wax u dhigi jireen u dhagaan qaarna waa qaar waaweyn oo brefer noqday oo lacag iyagu sameeyo oo iyaga laftooda u baahan day in lala xisaabtamo kuwa gamcahayagu way isgaadheen xaafadaha qaarkood way soo cawdeen madrasad la-aan bay ka cawdeen madrasad waa u dhismay waxaa ka mid ah madrasadda ku taalla maxamuud haybe waxay ku taallaa masalaha galbeed dadka xaafadaasaa markaa dhismo dowladda hoose lahayd oo xafiisya marka hore anaga noo ahaa ayaanu u transform garayn inuu madrasad noqdo macalin haaruun mid kaloo cusub baanu ka dhisnay idb kasta ama barakac kasta oo intaanu joognay aanu rabnayna intaanan iskuulka dhisin waxaanu horeysiinaynay madrasadda qur-aankaan horeysiinaynay madaariska qur-aanka ee soo codsada in wax lala qabtana waa la qabanayna laakiin sida maamul daadejinta wasaaradda waxbarashadu ay u caddahay ee heshiiska ugu jirto madaarisku heshiiska uguma jiraan iminka maxaa socdaa annagii wasiirka diinta awqaaftu waxaanu u ballansannahay in shir uu qabto ay arrinta madaarisku isaga hoos timaada inuu qayb ka noqdo maamul daadejinta qayb ka noqdo numberka madrasadaha uu dowladda hoose kusoo wareejinayana cayimo waayo mar lama wada wareegi karo mas-uuliyadda kuwoodu markaa ugu baahida uu leeyahay kuwan baa ugu daran in wax laga qabto in markaa aan wax ka qabano wasiirkana dee su-aasha waa weydiin kartaa sanadkan markaa wasiirka waxaanu isla sugaynaa madaariskee annaga mas-uuliyaddooda lagu wareejinayaa
si markaa baahidooda halkaa taalan wax uga qaban laakiin shaqadii ahayd madrasad cusub in la dhiso waxay ka bilaabantay idb kasta waa xaafad cusub kastoo annagu aanu samaynay kuwa iska abuurma maaha kuwa annagu samaynay waana nala tegi kartaan dibdaal baa nala tegi kartaan iidaan baa nala tegi kartaan digaalaa nala tegi kartaan iimaan filish halkaa dhimka bixinta cusub digay baa nala tegi kartaan waxaa nala soo arki kartaan labada madrasooyin annagu aanu dhisnay ayaa nala soo eegi kartaan taasina waxay caddayn u tahay inaanu tallaabo u qaadnay xaggaa laakiin sida aanu guusha uga keennay dib u dhiska deegaanka waxbarashada ee dugsiyada aasaasiga ah ee formalka ee wasaaradda waxbarashada ugu wareegsay mid dadaal lamida maanaan gelin laakiin qorshuu sanadkan wuu cad yahay waxaana doo loo baahan yahay in wasaaraddu ay qayb ka noqoto maayo shirkii maamulatiisa anima ka nimid wasaaradaha kaloo dhan way joogeen awqaaftu ma iman 45 shirka bacdi buu ka dhacayaa shirkii burco waa inay wasaaraddii dee awqaaftu qorshe la timaada ay dowladaha hoose ugu daadejinayso madaariska qur-aanka arrinta abaarso issue waxaan doonaya xildhibaan inay xasuusiyo magaalada marka hore afeef dhigto magaalo bilaa qorshe ku samaysatay wey waxaa la mid ah magaalooyinkii kale somaliland qorshe magaalo waxaa loo sameeyey laascaanood waxaa loo sameeyey gabiile waxaa loo sameeyey wajaale waxaa loo sameeyey buurama dhammaantood magaalooyinka qorshaha waxaa la sameeyey iyadoo oo qorshaysan oo la degeyahay marka abaarsana waxay ka mid tahay magaalada hargeysa qorshaha abaarso loo sameynaya wuxuu la mid yahay qorshe loo sameeyey gabiile iyo wajaale loo sameeyey la mid qorshe in la sameeyana waa muhiim qofka bini aadamka ah ee dhulkiisa ay ku hagaagto waxa horta dee saamaynta kenya waa wadooyin marka beertu haddaanay qorshaysanin saamayn saasa kuma leh laakiin waxay saamayn ku leedahay qofku hadduu dhul beer qorshaysan marka hore hadduu dhulka iibsaday oo markaa dhulkii ay wadda ka marto ayay saamayn leedahay shuruucda iyo xeerarkaa samaysan maana lagu maamulaa waxaa ka mid a jidka 200 markaanu saaraynay anu intaan joogay baa jidka 200 aanu qorshihiisa dejinay waanaanu samaynay wax qayla ana maydaan maqal wax cabasho ana maydaan maqal qofkii beertiisa ay dhex martay lamaanan macaamilin qofkii muwaadinka ahaa ee keligii ahaa ee cawdayna waa maxallinay shuruucda dee xeerarkuna way noo ogol yihiin sulux ku dhammaysano marka waddadii maanta way samaysantay haddaynu tirino inta bloogay martay waa 10,000 oo bloog bay jira wax cabasho iyo wax dhiboo ka timiya ma jirto marka abaarso waxay ka mid tahay hargeysa sanadkan imanka soo socda qorshii guud magaalada la sameeyo oo ka bilaabay jidka 200 ka dhaqaaqay oo jiha walbana ayaa dhowr kilomitir dhaqaaqayna saamayn buu keeni doonaa dib beeru mari doonaa dhul dalleey buu mari doonaa dad baa lahoo shahaado haysta mid u joojinaa magaalada inay qorshe yeelato hadday jawaabtu tahay haa maxaa boorame iyo gabiile iyo laascaanood iyo loo qorsheeyey iyagoo faylalle maxaa guryo loo dumiyey maxaa geeda loo dumiyey marka boorame ahayd halka ugu saamaynta badan oo magaalo cidhiidhi ah oo buuro ku gadaamay haddana dad badan baa dee la jiiray dhulkoodiina wadda martay waxaynu isticmaali doonaa uun casharka halkaa ku jira waxaynu isticmaali doonaa shuruucii kuwa loo adeegsaday su-aasha qorshaha magaaladana anigu xaq uma lihiba inaan ka jawaabay waxa xaq u leh inuu wasiirka howlaha guud ka jawaabo ama haddaan kasoo galaa waxa weeye dadkayga oo igu leh maya waxna loo sameeyo qorshihii xaafadda degmada abaarso iyo aan idiin sameeyo ee wasaaradda shaqada leh iyo wasaaraddii budget ma hayno iyo maayarkii oo budgetkii bixi iyo budgetkii waa kana hooya intaasaan anigu ku leeyahay arrinta waddada 150 xildhibaan waddada 150 waa su-aal taagan tan iyo intaan imid magaaladana waa waddo ahmiyad weyn u leh dhaqaale ahaan iyo qurux ahaanba dadka doonaya in la dhiso iyo annaga riyadaas sidnana riyadeedaba ka weyn waayo waxaan naga xamilnaa breedkan xitaa 18 million in loo raraan doonaynaa haddii ilaha yidhahdo waddada intaa leego beledkeedu intaa leeginu haysanaa oo kale ma jirto waxaa kaloo iyaduna fahamkaba yaryahay waddada 150 ma inta koodbuur iyo 66 juumba mise waddada 150 waa waddo ka macno weyn inta maxamed mooge ka bilaabataa axmed dhagaxii koo sugnay ka xumaata waa la digay dhulka laakiin maxamed mooge oo duwaytu koodbuur way banaan gamac dheerana ka xidhanta oo garoon baafrila garan xaji ayaa xidhay marka iminka annagu markii hore bilaabaanu siri waxaanu samaynay mise budgetkii wuxuu noqday 19 milyan iyo xogaa weliba saan u rubnay markaa loo sameynay wey dhulka intiisa badan beer laga dhigay baark laga dhigay u dhexeeya hareerka dhexdooda waa la iskala yimid waxaanu babadhignay maxaynu qaban karnaa dowladda hoose imise ka jari kartaa miisaaniyaddeeda waxaanu eegnay budgetka sanadka dhan aan developmentka ugu talagalnay haddii indhaha laga tuuro 4 milyan ayaanu budgetka uga jijifi karayn
4 milyan wadada 150 may dhisi karayaan baa su-aashu waxay noqotay maya dadkii waan hadda noo yeedhanay dadkaanu islahay waxbay idinla ururin karaan dadkii wax idiin weydiin karaan waanu u yeedhnay iyadana challenge kaliya caqabada kale ka horiyey waxaanu eegnay dadkani dad spiritkii iskaa ku qabsada ma leeyihiin iyana waa ku eegnay iyana way dabadii noo soo jeedisay markaanu intaasoo dhan ka qoorsanay markaa dadaal baanu gallay inaanu adduunka ula xidhiidno naa waddadani way naga awood weynta madaxweynihii horena marag buu iga yahay inta jeeraan kala hadlay baan ku ihi madaxweyne amaana noqotay miisaaniyadda waa in dowladda hoose wax loogu daro saan jidkaa wax uga qabano iyana ilaahay nooma suuro gelin hadda meel fiican oo wanaagsan bay maraysa world banka ayaanu xogaa yaroo lacaga ka helnay lacagtaasi waxaan u malaynayaa marka hore total waa 20 milyan oo tijaabana ah hor laygu eegayo laakiin waxaan qabnaa in marka design-ka la dhammaystiro lacagta inta dhimanna ay iman doonto marka lacagta world bank waxay nagu dhahdeen 9 degmo waxaanu doonaa baahidooda inay iyagu ka hadladaan idinku anaga nooma sheegaysaan meesha lacagta la weydiinayo dadna waxaanu qabanay maybe xildhibaanada qaar baa joogay waxaanu qabanay kulamo wada tashi oo dadku ayagu ay kaga hadlanayaan baahidooda iyo duruufooda kaga hadlanayaan dadkii markaa alxamdulilah degmooyinka qaar jidka 150 soo qadintay waxay dhahdeen wixii anaga lacagta nagaga beegma 150 hana loogu sameeyo qaarna waanu ka howlgalay qaarna munaanani wahin bay tiri laakiin si wixii yara macno u yeeshaan waanu ka howlgalo iyagana waanu kusoo qancin maanta alxamdulilah degmooyinka maxamed muge macalin haaruun gacan libaax 16 juun iyo koodbuur budgetkii ay ka heleen lacagta waxa la gelinaya jidka 150 kala gelinaya waxa markaa inoo horeynaya design markuu design-ku dhamaado design-ku kama hadlayo qayb ka mid ah wadada design-ku wuxuu ka hadlayaa from halkay ka bilaabmayso ilaa halkay ku dhamaanayso markuu design-ku inoo soo baxo shaqada bilaabmaysa waxaan ku rajo qabnaa shaqadu intay socoto lacagta kale u baahanay inay imanayso haddii ima weydo waxaanu commit garaynay gaababka soo baxay gaabka bajada soo baxaya in dowladda hoose oo rajo ka qabta inay xukuumadeedu dowladeedu lacag kusoo darsata meesha inaan ku dhiso marka commitment-kina waan bixinay heshiiskiina waa la saxay media waa ka aragtay iminka waxa la xaysiiyey shaqaalihii shaqadaa qabanayay agaasimayaasha shaqada aan u saaray khadar iyo nin maxaa soo naga soo gaaro shaqada ku maqan yahay haanin la dhaaf qorshaha jooga iminka Nairobi waa markii saddexaad iminka way tagayaan marka mashruucaas waxaana lagu hambaliyay waftigii ugu dambeeyay in shaqadii World Bank mashruuc uu qaadan jiray muddo ka yar inaanu shaqadii annaga aanu ahaynaan qabanaan ku qabano credit iyo ammaan badanna way ku hadlaan annana waxaan qabnaa inuu daaka maanta uga furaya dadku samirkooda iyo say u sugayaan heshiiska waa la galay miidiyaanu ku sii deyn shaqadii way socotaa miidiyaanu ku sii deyn shaqaalii mashruuca qabanayay miidiyaanu ku sii deyn haddana weli dadku urur waxay ka qabaan 150 la dhisay urur bay ka qabaan idinkaan rabnaa markaa inaan nala qadcisaan oo su-aasha marka taana saasan kaga jawaabaya waan idinku bishaareynaya mashruucaasi Soomaaliland weli u baahan yahay iyo dowladda hoose World Bank-kuna way naga caawinayaan biidhnillaahi tacaala ilaahi mudana guddoomiye iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda hoose ka socota agaasimayaasha ku heliya mudanayaasha guddoomiyaha baarlamaanka dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta qodobkaa madarasada axmed baa aad uga hadlayoo anna insha allah inaan tala waarkun baan ku kabaya dhowr su-aaloodna waan u dhaafi doonaa mudane guddoomiye dunida markaad eegto dal waliba waxa ugu badan ee tacab la geliyaa waa diintiisa iyo culturekiisa gaaladu culturekeedu iyo diintooda fanka ugu badan geliyaan dalalka muslimiinta ah ee iminka inaga inagu xeeran sida iminka khaliijka oo kaleba markaad soo qaadato adeegyada dowladda ee la qabto waxa miisaaniyadda ugu badan iyo budgetka ugu badan la geliyaa culturekooda iyo dhaqankooda iyo diintooda hawshaa mudane maayir anigu talaan ka bixinaya madrasadaha sidaa iskuullada waanu kaaga mahadnaqayno aad u qurxisay iskuulladii hoose dhexe waxaan odhan lahaa haddii iskuullada hoose dhexe gelinka hore qura la dhigto qaar gelinka daba banaanay ay jiraan inaad macallimiin qur-aan inaad qabataan dabeedna ardaydana ay yimaadaan gelinkaa daba oo bilaash ay ku dhigtaan
tala ahaanna inaynu malcaamadaha qur-aanka kariimka iskuullada ka horraysiino oo ardaydaynu ay inaynu meelaha dee hadda aan qorshuu gaadhina madarasado waaweyn oo laga sameeyo meelaha qorshuu gaadhina sidaynu madarasado dadku dhigtaan oo freeya oo macallimiinta laga dulqaado aynu heli lahayn aynu ka raadino hadday dhulka dowladda noqoto hadday iskuulladan oo aynu dabaqya saarno xagga sare deedna madarasaadii qur-aanka u adeegsana ay noqoto markaa horta halkaa diinta aan culayska saarno bulshada haddaynu diinta ka dhisno horumar weyn iyo ajar baynu gaadhayna markaa mudana guddoomiye waxaan leeyahay hawshaa madarasadaha qorshaha ku darsada oo sanadkan wasaaradda waqaaftana waa kala hadli doonaa haddii xukuumadda dhexe dhismayaasha iyo degmo walba laba santar oo diinta lagu barto maxado arday ilaa 1,000 iyo 2,000 oo arday qaadaya maadaama aynu iskuulle maandi oo 5,000 oo arday lagu dhisanayaba aynu dhisno aynu hayno at least haddii xitaa kuwa xilliyada fasaxa dabaqya laysu saaray degmo walba qorshe xukuumadda dhexe wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo maaliyaddana waa kala hadli doona inaynu diinta kor u qaadno oo qurxino insha allahu tacaala markaa taa idina qorshe cad kasana taasi waa iga talo ta kale su-aasha kale ayana bal inaad xagga biyaha iyo xagga adeegyada caafimaadka ee degmooyinka fogfog iyo tuulooyinka magaalada caasimadda hoos yimaada bal taana inaad insha allahu briefing iyo waxa idinka bolisiya siyaasada su-aalaha kale aan mudana maayir ma jirtaa xeerar caqabad ku ah golaha deegaanka iyo dowladda hoose oo ama golahani baan ansixiyey ama golihii naga horreeyey baan ansixiyey ma jiraan caqabado cadaadiseed oo kale oo dee ama xukuumaddanba ha noqoto ama tii horeba ha noqoto oo aanu ayana dee ma garanaysa aanu idinkala oo madax banaanidiina iyo hawlihiina saameynaya waxaa kaloo su-aasha kale waxaa jirta systemkan mulkeedaha shirkad baree faradaba aanu bixiso oo gacanta ku haysa shirkadda warbixinteeda ma waqti cayiman baynu kula heshiinay ma 10 sano ay gacanta ku haynaysaa ma in ka yar bay ku haynaysaa ma waqti systemkan ay dhiso ay dowladda hoose ku wareejinaysaa jira bal systemkaa shirkaddaana nooga warbixi guddoomiye su-aasha kale shaqaalaha dowladda hoose qaabka lagu qoro haddii wax bannaanaadaan qaabka dariiqa u martaan haddii qaar shaqadaba ka tagaan ama iskood uga tagaan ama laba eriyana oo qofku dee dembiye iyo khaladaada uu geli karaa hadduu imika qof 10 sano ama dhowr iyo 10 sano dowladda hoose u soo shaqaynayay ama uu shaqada iskii uga tago ama dee maamul ahaanba dee dembiye galoo la eriyo qaabka xuquuqsiintooda yaa u martaan ayana xeerarka dee kolley xeer baa jira shaqaalaha dowladda dowladdana waynu wadanaa ma xeerkaasaa u martaan ma dariiq kale u martaan taa xeerarka qodobka su-aasheeda u dambaysa inkastoo ay maareeyey biyuhu dee wakaaladdu ay ka madax bannaantay oo aan ogna haddana dee maayirkii caasimaddaata biyaha iyo caafimaadka iyo intaba waa lagu weydiinaya maxaa caasimadda biyaheeda maxaad xog ka bixin kartaa maxaa tala ahaan qaran ahaan iyo gol ahaan baad naga siin kartaa sida caasimaddu muddo dheer unbaa biyo la wadaa mashaariic badan la wadaa lacago badan la wadaa waxaan aaminsanahay lacagaha badan sida qaabkay u socdaan si ka fudud haddii aynu ama wax badan inay dee caasimaddu biyo heli lahayd waayo biyuhu ayagoo socdayna dhaafaan oo dee dooxa inta marta mar qura uu soo rogmado yaa roobka dambe aynu ku gaadhi lahayd haddaynu xaggaa meelahaa sare dee iyadoo nadaafadoodana la ilaaliyo meelaha qaar qabanno laga faa'iideeyo dadyowgu wayna la yaaban biyaha intaa leeg bayna maraa haddana waynu ka oomanahay bal taana waxaad tala u aragto iyo waxaad warbixin dee maayirkii caasimaddaa tahay taana waa su-aal kale su-aasha u dambaysa xeerka caasimadda inagu inala yaalaabaa golaha ma xukuumadda inoo soo gudbisay xeerkaa laftiisa
xeerkaa laftiisa caasimadda dee meelo badan baa iminka oo gobol laysu bedelo gabilay ka mid tahay baa hoos timaada meelo badan baa la iska gelayaa oo iminka duruufaha ugu adag gabilaya iyada iyo sida loo kala guri lahaa oo xildhibaanadii baarlamaanka inteebay gabilay qaadanaysaa inteebay hargeysa qaadanaysa xeerka caasimaddu wuxuu siinayaa in tiro kaloo gaara uu siinayo xildhibaana balligubadle iyo gobollo kale oo ayana iyo degmooyin kale oo xildhibaanada la weheliyaana way jiraan bal halkaa lafteeda caqabadaha badan baa jiro waxa weeye halkaana gobolka ka farcamay baa jooga xeerkuna waxbuu dhigayaa xeerku waa inuu xildhibaano gaara helaa xildhibaanada golaha ee iminka gabil gobolka Muradjeex marka la isku daro waa 20 xildhibaan bal maxaad ku talinaysaa gobolada maxay u jara caasimadda maxay u jara xeerka haddaynu guda galno waxyaabaha caqabadaha ugu badan ee ku gadaamay baan ku sheegayaa dee uu ka socon laayay maxaa taana xagga kuraasta ku fadhidaan buu xitaa saameynaya kuwa baarlamaanku saameynaya taana maxaa tala ka odhan bixinaysaa waa mahadsantiin bismillaahi raxmaani raxiim xildhibaan kula qabaa in mudnaanta koowaad diinta iyo dhaqanka la siiyo ummaddu inay diinteeda iyo dhaqankeeda ilaashatay wax ku ahaanaysa marka dee kulli xeerarkii labada safeguard garaynaya ilaalinayna idinkaa idin kara xeerar baa u curin kartaan arrimaha ka hadlaysaan annagu laakiin inta aanu ognahay mas-uuliyadna waan kula qabaayo inaanu mudnaan siino qurxinta dibudhiska hagaajinta madaariska waanu iyadana kula qabnaa waxaan isleeyahay tallaabooyinka intii golahan jiray aanu qaadnay inta madrasad cusub nin wadaadi dhisay midaan looga mahadnaqin walbi waxay ugu dhaadeen wadaadu waan laga yimin jiray meelaan madariska dhisay anu intaan imi may dhicin meel malcaamad laga dhisay waqafa oo la iibsaday ma dhicin meel ay ka badnayd way gudihii inaan dhulka ugu dhameeyana ma dhicin qofku markuu ila yimaado madrasad baan dhisayaa markaba waan kaxaynaa meeshii waa geynaa marmar bay nagu dhacdaa qofku inuu meel gaara doonayo iyadoo baahidii meel kale aan anagu ognahay inay taalo waana nala booqan kartaan maalmaha kamid ayna kaxayn karnaayo madaariska aanu dhulka anagu siinay la dhisay kuwa ma sheeganayna laakiin dhulka anagaa siinay sharciga anaa u sameeyey cashuur lagama qaadin inay waxaas ummaddu leedahay waqafteen anaa ugu qoray talabaad waxa weeye kuwaanu dhisnay anagu dhisnay wey arrinta labaad waxa weeye laba shay oo hadda socda oon isleeyahay arrintan ay weydiinaysaan waxbay ka tari doontaa haddii wasaaraddu nala fahamto annagu waxaanu nidhi markii lagu wareejiyey dugsiyada primaryga waxaanu nidhi war iskuulladan maxaa diidaya in iskuulkani uu noqdo curriculumka carruurta wax loogu dhigayaa curriculum midaynaya diinta marka madrasad xiisadda diinta ay noogu jirtay waxawayaan laakiin si guud baa loo baranayay maxaa xiisadda qur-aanka loo odhan waayo mala ilmaha yar diin waa ilma yar diin la bari maayo isaga qur-aanka looga bilaabaya alif iyo ba baa looga bilaabaya marka macallinkii in la soo kordhiyo soo maa xiisaddii qur-aankuna ay ku jirto soo maa imtixaankana lagaga qaado la cayimo dugsiga primaryga grade 1 to 4 ilmuhu waa inuu dhameeyaa intaas soo jiisa annagoo halkaa ka duulayna markaa intii aanu joognay golaha deegaanka tartanka qur-aanka 10 juz samayn 10 juz annagaa qabana annagaa maalgelina annagaa qabana abaalmarintana annagaa bixina waayo markaanu doodno waxaanu nidhi inagu qur-aankii intaynu ku leenay dee waxaynu ku leenay intii ilmaha yar laga rabay markuu ilaa 4ka yahay carruurta qaar way maskax fiican way ku dhameeyaan qur-aanka laakiin 15 juz buu ilmaha average-ku markuu 4 sano iskugu dhiganayo dhakada ka haya marka waxaan inagu aynu ka xoog saarno dadaalka imaka wasiirka waxbarashada uu diin doontaane waxaan isleeyahay anigu was of resource badan baa jira inaad madrasad halkan ka dhisto iskuul halkan ka dhisto oo labada waxa ka fiican in la mideeyo oo madrasadii iyo iskuulkii la mideeyo oo ardaygu xiisada qur-aanka uu dhigto imtixaankana lagaga qaado dee laga dhegeystay imaka waatan aynu qabanno iyadoo la iska dhegeysanayo qiraa'aadka qur-aanka marka maxaa diidaya maalinta imtixaanka la qaaday in qur-aanka ardayga laga dhegeysto dabeetana 10 juz markas kolana lagu siiya halkan marka taasina waa taa marka de qurxintana inaan halkaa u socono waxa sheegaysa dadaalka lacagtan ku bixino tartanka qur-aanka waa lacag fara badan wey sanad kastana waa la qabtaa waa joogto sanadkii dhaweydii sanadkii horena lacagtu way kala badnayd waananu sii dadaalayna insha allah bidmillah